dadkii la yaabka lahaa. Dadkan waxay leeyihiin dhaqamo la yaab leh oo aadan fili doonin in ay qof bini'aadan ah uu dhaqankan yeelan doono. Waxaan ugu horeysiiheynaa odayga la yiraahdo Moray Morandi. Odaygan waa 81 jir ku nool dalka Talyaaniga. Waxa uu ku nool yahay jasiirad Talyaaniga ku taalo oo qof bini'aadan ah uusan ku noolayn ayuu kaligiis ku nool yahay. oo waxa uu Instagram-kan waxa uu ku leeyahay aqoon ayuu ku leeyahay Instagram-ka uu soo dhigaa sawirada uu ka soo qaado jasiiradda uu kaligiis ku nool yahay. Waxa caawiyo oo ka saaciday eheladiisii oo meesha cuntay waxa uu keeno iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalaha uu u baahan yahay magaalada ugu baahan yahay uu keeno meesha. Markii la weydiiyay sababta ku qasabtay inuu kaligii jasiirad ku noolaado cidna aysan ku noolayn waxa uu ku jawaabay waxaan nacay nolosha beenta ah ee bani'aadamkii uu ku nool yahay ayaan nacay ayuu leeyahay iyo la noolaanshaha wajiyada beenta ku dhisan. taas ayaan ku qasabtay in uu ku noolaado jasiiradda waa sidoo asaga uu sheegay. Odaygan waa 81 jir wuxuuna jasiiradda kaligii ku noolaa 32 sano ayuu kaligii ku noolaa jasiiradda. Hadda ayayna dowladda Talyaaniga ku qasabtay in qasab looga kaxeeyo jasiiradda lana geeyo meelo lagu daryeelo si uu u helo daryeelka u baahnaa maadaama uu yahay qof da' ah. Waxaan laba ka dhigaynaa gabadhii ilmaha ahayd. Gabadhan waxay ku nooshahay dalka Mareykanka waa 25 jir. Baji Miller ayaa la yiraahdaa. Waxay leedahay kanaal YouTube ah ayaa leedahay. Gabadhan waxay u dhaqantaa sida ilmihii oo kale oo waxay leedahay masaasadii caanaha ka nuugto. Waxay leedahay xafaayada ayay xirataa oo bishii ku dhawaad $300 ayay ku bixisaa xafaayadaha. Waxayna $300 ka keentaa channelkeeda YouTube-ka ayay kaga soo xarootaa. oo xafaayada leedahay mid habeenkii ku seexatay mid subaxii gashato masaasadaha ayay nuugtaa sariir ilmihi ayay qabtaa waxay leedahay dharkeeda qaabka ilmeygi oo kale ay u labisataa jadwalkeeda YouTube-keeda wuxuu ku shaqeeyaa in daily routine-keeda ay soo duubto oo subax markay soo kacda iyadoo xafaayadii bedelayso mid kale xirayso masaasadeedii nuugayso sariirteeda ilmaha goglahayso saas ayay ku soo gashaa YouTube-ka oo kaga shaqeysataa waxayna u nooshahay sida ilmo yar waa 25 jir ilmo ah. Waxaa ku xigo Tom Bitter. Ninkan waa ninkii eeyga ahaa. Ninkan waxa uu nool yahay sida eeyaha kale oo wuxuu asagana sameeyaa socodka iyo cunto cunista iyo markuu hadlaayo inuu ciidi eeyaha kale uu leeyahay oo sida eeyaha waxa uu cuno sida eeyaha waxa uu cabo socodkiisa uu noqdo sida eeyaha kale oo markuu seexanayeen waxa uu ku seexdaa qafas yar ama biro yar oo dhistay oo birahan loo dhisay eeyaha dadka eeyaha guryahooda waxa ka dhisan biro yar yar oo eeyga lagu xiro markuu seexahayo kale ama uu maalintii oo kale adisan aysan waxba shaqo u dirsanaysan meelna loo wadaynin oo kale biraha lagu xareeyo eeyaha birtaas oo kale oo dhisto habeenkii seexda sida eeyaha kale ayuu u nool yahay. waa 32 jir ku nool dalka Ingiriiska. Amar Baharati waxa uu ku nool yahay dalka Hindiya waa oday Hindi ah. Odaygan waxa uu 1973 ka soo bilaabato ilaa ay hadeertaan odaygan gacantiisii ayuu kor u hayaa gacantiisa midig oo waxa uu go'aan ku gaaray inuu ugu shaqeeyo diintiisii Hinduuga ahayd. Waa aabba dhalay 3 caruur ah una janjeera xaggii diinta wuxuuna aaminsan yahay Hinduuga oo 1970kii qaarna waxay dhahaan 73dii wixii ka dambeeyay gacanta kor ayuu u hayaa oo gacantiisii waxay noqotay qolof aan hadeertaan hadii uu talagalay xataa inuu ku shaqeeyo aysan waxba shaqo ah u qabanaynin maadaama uu dhowr iyo 30 sano ama dhowr iyo 40 sano uu gacanta kor u hayay. kusoo dhawaada muuqaalka haddii aad la yaabtay ama mid ka yaabiyo uu jiro qaybta commentiga noogu reeb waxyaabaha aad jeceshiina muuqaalka soo sameeyna qaybta commentiga noogu reeb subscribe noo saar kan balaalkana furo si fiidiyoda cusub ku soo gaaraan soo dhawaado.